qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishinka Sam News TV iyagoo qayb ka ahaa dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay beerta xorriyadda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay halka ay marayaan dadaalada loogu jiro ixtiraaf raadinta Somaliland. runtii wallahi maanta farxadayda lama soo koobi karo anigoo kamid ah maamooyinka Somaliland anigoo kamid ah maanta farxadayda iyo dareenkayga lama soo koobi karo anoolaata Somaliland qaranimada Somaliland waa muqaddis Soomaaliya dooni mayno Somaliland hawaarato xaasidku ha jabo waxaan halkan maanta ku muujinaynaa anigoo ah dadweynaha u dhashay Jamhuuriyadda Somaliland ee saaka u soo banaan baxay inay muujiyaan gooni isku taagooga qarannimada Somaliland taageerana cid kasta oo Somaliland irbad u gelisa dun bismillaah maanta dareenkayga lama soo koobi kaadaan ardayda gacan libaax ma sha Allah ku faraxsanahay kala shucuurteedina way kacsantahay waan ku faraxsanahay waxa leeyahay Somaliland cadawgeeda cagta hoosteeda inkastoo lagu xiyaaday Somaliland farxadeedu waan eeriya nimca Ilaahay baan ku jira maanta Jamhuuriyadda Somaliland oo banaanka u soo baxday ayaan u soo baxay waanu nacnay xamar ma doonayno ma rabno ma doonayno xamar Somaliland baan leeyahay madaxweynaanu leenahay gurti baanu leenahay barnaamij Ilaahay uga bareena calankeena calan khayr qaba inuu Ilaahay nooga dhigo itiraafka Allah ayay ku xulay Ilaahay baana itiraafka la ilaaha illa Muhammad rasuulullaahi nagu qoran Ilaahay ma hadiyeen taagan waxaan idin leeyahay meel kasta oo joogtaan Somaliland calankeedu wakaa ana hay hooyo Somaliland dara magacayga waxa la yiraahdaa Amiin Salebaan Cumar waxaan maanta afartii soo shaqatay awlaadayda waxaan ka doorbiday qadiyada maanta aniga oo doonaya calankii 60 aan qaadanay inaan maanta dib u soo ceshano dareenkayga aan lama soo koobi karo maanta halkan waxaan ka muujinayaa inaanan gooni 60 aan qaadanay wulina hadallada dadweynaha ayaa imaanaya iyadoo maanta badiba magaalooyinka waaweyn ee dalka laga wado isku soo baxyo lagu taageerayo dooda xildhibaanada ee UK ay ka yeeshaan qadiyadda Somaliland waa Badr Muxyidiin Xuseen Badr Waaxid telefishinka caalamiga ee Sam News TV Hargeysa.